Sawirkan aad u jeedaan waa gabar dhalinyaro ah. Waxaa lagu magacaabaa Maryan Xuseen Xasan. Marka hore si wadajir ah aan ugu duceyno in uu Ilaahay u boogadhayo. Kadibna waxaan kula wadaagayaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladdeeda caafimaad kadib markii dabaq ka kooban 5 biyaano ay iska soo tuurtay. Haddaba sababta rasmiga ah arrintaasi ka dambeysa iyo sidoo kale xaaladdeeda hadda oo aan idinla hadlayo sida ay tahay ayaan halkan idinkula wadaagayaa iyo saygeeda oo la sheegay inuu sameeyay hal arin oo khatar ah oo u baahan in la bidhaamiyo. Marka hore u duceey oo muuqaalka sii share garay siina gaarsiiya asxaabtaada kale. Gabadhan la yiraahdo Maryan Xuseen waxa ay ku nooshahay degmada Shibis ee gobolka Banaadir muddo 4 sano iyo dheeraad. Waxaa dalka dibadiisa tababar ugu maqnaa saygeeda. Intaas oo dhan waxay ahayd mid sugaysay oo rabtay in nolosha la sii qaybsato oo halkaas ay ka sii wado. Ha yeeshee waa uu yimid balse maxaa dhacay oo gabadhan ay u jiiftaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho maxaysa dabaqa ka kooban 5 biyaano oo ay isaga soo tuurtay oo nafsadeeda khatar ay u gelisay. Waxaa la sheegay in intii ay sugaysay xaalada kala duwan oo duruufo nololeed ay ka mid tahay ay ugu dulqaadatay nolosheedan ay ka jecleed oo ay dareen jacayl u muujinaysay. Ha yeeshee markii uu yimid halkii ay ka sugaysay in nolosha halkaasi laga sii wado oo ay isku soo dhawaadaan kalgacaylka la sii wado waxaa dhacday ayaa la yiri in uu guursaday say kale ama inuu guursaday xaas kale. Waxaa la leeyahay marka taas ay ka hinaastay oo maseer ay qaaday waxayna iska soo gantay oo ay iska soo tuurtay iyada oo meerkeeda uu doorsan yahay oo aysan ogeyn wax ay sameynayso. Dabaq 5 biyaano ah madaxa, lugaha, gacmaha iyo dhabarka ayayna ka jabtay oo xaaladdeeda waa lala tacaalaya. Qaar ka mid ah ehladeeda oo iyaguna ku sugan degmada Shibis qaarkood ayaa ii xaqiijiyay in lala tacaalayo arrintan ay ku timid maseer iyo hinaaso. Ninkana Ilaahay afar uu baneeyay balse waqti dheer ay u sabreysay xadgudubna uu sameeyay taas oo ah in marka hore iyada uu kaafiyo sabarkeediina uu ugu abaalgudo mahad celin iyo in uu nolosha halkaasi ka sii wado. Ha yeeshee arrintan ay tahay arrin qoys oo wixii kale si hoosaad ah loo gali doono sidaas ayay ii sheegeen. Haddaba adiga wiilyahow adiga qofka la hadlayo waa adiga ma sameyn lahayd gabar xaaskaaga ah ama wada socod uu idinka dhaxeeyo oo 4 sano ama 5 sano ku sugaysay in marka aad timaado adigoo tababar jiro ama xaalada kale u baxay in halkii iyada aad nolol la qaadan lahayd mid kale aad mehersato iyaduna xaalad halis ah ay gasho. Qaybta hoose igu reeb aragtidaada muuqaalkana markale si gudbi.